bulshooyinka ku dhaqan degmada Celaf Weyn ee gobolka Sanaag ayaa tabasho ka muujiyay maamulka golaha deegaanka ee degmadaasi Celaf Weyn oo tan iyo intii la doortay aan wax qabad muuqda ka muujin deegaankaasi waxayna baaq u direen xukuumadda Soomaaliland iyo wasaaradda arrimaha gudaha sidoo kale waxay bulshooyinka ku dhaqan degmada Celaf Weyn tabasho ka muujiyay maamulka heer gobol waa kuwan shacabka oo diraya fariimo qayladaan ah raacay shuruucdii sharciga ahayd ee inuu qabto mooshinka golaha deegaanka xilka وكلا تري هدي أنا شروط وافقسنا إنه وجوجي وحكسه وحكو مش قلنا قولها دقان كنا وحدة شروط شرعيات قليل حق بصدين ما ملك حق قاتيين نبت قليل حق قاتيين هير دقمي هير قبل ما من سعودين يوحي لها سعودين إن أي حكومات سريع هي حكومات قبل أي دقمة هوسو يكتو أي كبد باريسو مسلم لا ما ملك دقمة ولا حي يقول لي دقان كيام دورنا أولا لا حكومته هكذا تقولها دقان أو ما يناوس مع مقالة ما يمتشوجو ما يرحقين متشوجو وحنا نسي لها دقان هان ما ملحان دقمة العيلفين تذكي عن كدورنا أيها وشو دي قبي دولدلو وين ويجس قدوميها قبل سنة فاي وانو شيء تراس بنقول لافا تراس بنقول صور لافا. بابا وقرنا من حوالي تمد السومالي لين وصير كريمها جوده سومالي يعدي قصصه الوضيان هكذا نشوفنا هذه النوعية وحنا يدك هو صارنا براسها من قبل كسناك وصابوا مجالات العيلة فوين عند عضوهم حقبت كذا ودنا من المجالات واحد سعودي ويا براسها يعيد كذا مشاهد ست شوكته عدة تطهر نقطة وحنا دقني سينا إن أوفرين أقدرنا مدحونا شمول السومالي يعني يعيد كذا متقنع الساعة قبلك بيش موشي كليالي إيه لا حتى وقبسل لا يهاي يعني قولي كده وقبسل لا يهاي موشي كي وصار جاي إيه بدأ سب كتابية بدأ سب دولة الحقيقة بالنسبة مسارع اللي يقول حليبة إن شاء الله قبلنا كنا اللي جاك أبطال دولة هوسة أرض مش غيصون صارت كانت أنا حويه وفرق قليل لو حيو waxaan dawlad ka cusubnay fargeynta laga daayo dawladda hoose si shaqada ugu qabsadaan mooshinada ugu qabsadaan uma xbanaadan marka ay wax isbedel dhici karaan anaga ilaa deegaan ahaan baan ku hadlaynaa deegaankii markaas isbedel ka dhici karaa talabaadna waxa weeye golaha deegaanku waxyaabo si kastaba ha ahaatee maamulka golaha deegaanka ee degmadaasi Celaf Weyn ayaa danihii ay bulshada u hayeen waxay maalmihii u dambeeyayba kaga mashquuleen mooshino ay rabaan in xilka laga tuuro maayirka iyo maayir ku-xigeenka halka uu maayirka degmadaasi Celaf Weyn uu ku maqan yahay caasimadda dalka Hargeysa xilli laga joogo 3 bilood sidoo kale waxaan xiriir la sameynay barasaabka gobolka Sanaag laakiinse nooma suurtagelin Axmed Maxamed Cilmi Hoonkeybel Celaf Weyn.